isagoo hubinayay in ajandaha la raaco dooduhuna ay ahaadaan kuwo wax ku ool ah. 3. xalinta khilaafaadka. Gudoomiyuhu waxa uu si miisaan leh u dhexdhexaadiyay marka dooduhu ay noqdaan kuwo kulul, gaar ahaan arrimaha masiiriga sida doodii dastuurka ee buuqa badan dhalisay. 4. go'aan qaadasho culus. inkastoo gudoomiye Jaamac Yaasiin uu marar badan qaatay go'aamo u janjeera dhanka horumarka bulshada, haddana go'aankii uu qaatay xilligii muranka dastuurku uu taagnaa ayaa noqday mid dhinacyada oo dhan ay ku qanceen, taasi oo keentay in la helo is-afgarad guud. 5. dhiirigelinta is-afgaradka. Gudoomiye Jaamac waxa uu arkay in hogaamintu aysan ku koobnayn gudaha baarlamaanka oo keliya, balse ay tahay in la dhageysto aragtida shacabka isla markaana laga shaqeeyo danaha iyo rabitaanka guud ee bulshada. xaaladihii taariikhiga ahaa ee hogaamintiisa. mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu xasuusta iyo xiisaha badnayd waxay ahayd in xilli habeena gudoomiye Jaamac Yaasiin uu shirgudoomiyey kulan degdeg ah oo socday ku dhawaad 7 saacadood oo xidhiidha. kulankan oo la isugu yimid si loo xalliyo khilaafkii hadhayay shirweynihii dhammaystirka ayaa ahaa mid muujiyay kartida dulqaadka iyo hogaaminta geesinimada leh ee gudoomiyaha baarlamaanka, taasi oo dhalisay ugu dambeyntii in dhinacyadu ay tixgeliyaan qaraaradii ka soo baxay baarlamaanka, sidaasna lagu iba furay shirweynihii oo ay ka qayb galeen erga ka kooban 400 oo ruux, kuwaasi oo socday maalmo dabadeedna lagu dhammaystiray dowladda waqooyi bari Soomaaliya. halkaasna waa xidhitaankii shirka waxa uu Jaamac Yaasiin Warsame ka yidhi. wuxuu yidhi abwaanku guddi dhaqan leh iyo guurti iyo goliyo xeerbeegti gablan uma horseedaan dad ay gacal u sheegtaan. Gudoomiye Jaamac Yaasiin Warsame ma uusan xadidin doorkiisa gudaha golaha, waxa uu bulshada si toos ah ula wadaagay qaraaradii ka soo baxay baarlamaanka, isagoo ku adkaystay in la qabto shirweynaha lagana fogaado dib u dhac kasta. waxa kale oo si cad u sheegay in loo baahan yahay in la dhageysto aragtida bulshada, taasi oo keentay kalsooni iyo taageero ballaaran. geesta kale, sidaan hore u sheegnay, gudoomiye Jaamac Yaasiin kuma uu koobnayn oo keliya hogaaminta baarlamaanka, waxa uu qayb ka ahaa dadaalada loogu jiro horumarinta bulshada sida dhiirigelinta dhalinyarada iyo xalinta khilaafaadka beelaha dhexdooda. si kastaba ha noqotee, baarlamaankii koowaad ee waqooyi bari Soomaaliya waxa uu ahaa tiir muhiim u ah oo dhidibada u taagay nidaamka dowladnimo ee waqooyi bari Soomaaliya. Gudoomiye Jaamac Yaasiin Warsame waxa uu taariikhda gashaday ama ugu qorantay dhaxal hogaamineed oo ku dhisan kartida maaraynta khilaafaadka, go'aan qaadasho cad oo miisaan leh, dhisidda kalsoonida bulshada iyo xubnaha baarlamaanka. waana mahadsantihiin, shirkuna waa xidhan yahay.